magaalada Hargeysa waxaa shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah haweenka gobolka Maroodijeex ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanay haweenkani sheegeen inay jawaab ka bixinayaan hadallo ka soo yeedhay isla haween ay ka wada tirsan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana eedaasi la xidhiidhay cabasho dhawaan ka soo yeedhay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada 26 Juun oo cabasho xoogan ka muujinay mid ka mid ah biraha shirkadaha oo xaafadaasi la qotomiyay waxaanay haweenkani hoosta ka xariiqeen si weyn uga digeen in khilaaf warli ka dhex dilaaco garabka haweenka ee gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani haweenkani oo isla xisbigooga haweenka ka tirsan u jawaabaya waxay yiraahdeen waxa maanta shirkan jaraa'id nagu kalifay arrin saaxada siyaasadda aan lagu arag on hore loogu arag oo kow ka oo uguba wali lama arag xisbi hablihii ku jiray iyaga gudahooda isu jawaabayaan oo iscaayaan maanta ka hor lama arag waxaanu ka hadlaynaa arrin dareen shacab ahayd oo xaafadda 26 Juun ka dhacday ee Goljanno ummad ka hadlaysay saadkii iyo dadka sixir bararkii ku kacay oo halka mudaharaad la soo baxay oo halka dareenkooda kaga hadlay wixii madaxweynuhu yiri oo aan cid magacaabin xisbiga wadanina kamid baanahay cidna uga matagayo waxa weeyaan arintaas waxay ka dhacday hablahaas waxay ka hadleen qabiil waxay ka hadleen dagaal sokeeye waxay ka hadleen waxyaalo aynaan garanay waxay dhahan som cable telesom baa ka hadashay birteeda biidaan telesom waa share cid waliba leeday cid lahu qabiilihina ma jirto som cable laakiin reer baale telesom leedaha xaafada laga taagay oo baawar badan leh birtii baa la diiday had iyo jeeraalan waa aragteen xaafad kasto birahaasi ka taagan yihiin dadku waxay yiraahdaan waxay nagu keenaysaa waxyaalo dadka marka arintaasi arin laakiin qabiiliyeysan ama cusuridaysan ama reer loogu jeedo ama xisbi lagaga hadlayo midna ma ahayn marka waxay yeeshaan hablayo xalay wixii aad ka hadasheen walaal waan u adkaysan weynay hablaha yagii oo aanan waxba ku samayn asee dareenka iyaga shicibnimo oo ahaa la muujiyo 26 Juun waxa idinku kalifay waxaan leeyahay gabdhahan soo baaya ee isla xusbi baad dhisaysaan xusbi ma dhisaan xusbiga waa duminaysaan xusbigii u cudbaad soo baabiisaan habli xali ka hadlayay meesho xusbigan wadanna waxaad rabtaa inaad baabiisaan mar walbana waxaad ku anjabtaan jiilba hebel isku ka yaala bal annaga iyo jiilku isku ka yaala annagana Muuse bixi ay jiilku isku ka yaala ma nahna sheegay habli ka hadlayay burka dacid walaw burka way dubataa bal annagu burkaan dubanaa nagu sheegtay idinku maxaa dubataan bur in la isku caayo maaha in qabyaalad meesha la galiyana ma qabyaaladuna ma fiicna waxa wanaagsan anaguba wadani baan haye maan raacin reernimada inaad ka saartaan xusbiga Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.